Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Daawadayaal ku soo dhawaada qodobada wararka ugu doorka channelkeena Daily TV waxaana ka mid noqonaya madaxweyne ku-xigeenka Somaliland oo kulamo ka wada isutaga Imaaraadka Carabta, hantidhoorka guud ee Soomaaliya oo shir uga qayb galaya dalka Ruushka, Turkiga oo ballanqaad u sameeyay wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta Soomaaliya, lacagta ku baxday dhismaha safaaradda Soomaaliya ee Washington oo la shaaciyay, kooxo hubeysan oo habeenay ku toogtay suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho, farmaajo oo ballanqaad culus u sameeyay Soomaalida ku nool dalka Mareykanka, madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele oo baaq u diray dowladda federaalka iyo Jubbaland, Faarax Macalin oo shaaciyay in ganacsatada Soomaalida ay ka wareegeen dalka Kenya iyo Soomaaliya oo diiday in ay saxiixdo heshiis muhiim u ah IGAD. daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii wararkeena channelka Daily TV ugu door corona inta aan faahfaahintooda u guda gelin waxaan marka hore idin xasuusinaynaa oo aan idinka dalbanaynaa inaad nagu soo fiirtaan channelka subscribe saartaan sidoo kalena gambaleelka aad furtaan si aad uga mid noqoto daawadayaasha ugu horeeya ee wararkeena ay u soo dhacaan ama waa arkaa qaatana u diyaar garooba qodobadii aad maqasheen oo dhammaystiranna. Soomaaliya ayaa diiday in ay saxiixdo heshiis muhiim u ah IGAD. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa diiday in ay saxiixdo xeer isdhexgal ah oo uu garwadeen ka yahay urur goboleedka IGAD. xeerkan oo ay soo diyaariyeen wadamada ku bahoobay IGAD ayaa la xiriira isu socodka dadka xoolo dhaqatada ah ee dalalka xubnaha ka ah ururkaasi. wakiilka dowladda Soomaaliya uga qayb galay shir ka dhacay magaalada Kampala ee dalka Uganda ayaa diiday inuu qalinka ku duugo heshiiskaasi, wuxuuna sheegay in dowladdu ay u baahan tahay fursad si ay arrintan la tashi ugala soo sameyso maamulada dalka. sidoo kale waxaa xeerkan diiday in ay saxiixdo dowladda Itoobiya oo iyaduna ah dowlad federaal ah. labada dal ee Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa dalbaday in la siiyo fursad dheeri ah si ay wada tashi uga soo sameeyaan xeerkaasi. haddii la saxiixo xeerkan oo ay ku jiraan 32 qodob oo xasaasi ah ayaa u ogolaanaya dhammaan xoolo dhaqatada wadamada IGAD in ay u roob raaci karaan dalka uu roobka iyo daaqa xoolaha ka jiro iyagoona ka gudbi kara xuduudaha shuruud la'aan. dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa ugu dambeyn la siiyay muddo 2 bil ah si ay uga soo fikiraan xeerkaasi. Faarax Macalin, siyaasi caan ah xilal badanna ka soo qabtay dalka Kenya, ayaa shaaciyay in ganacsatada Soomaalida ay ka wareegeen dalkaasi Kenya. siyaasiga Faarax Macalin oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in inta badan ganacsatada Soomaalida, maalqabeennada iyo qurbo joogta ay ka wareegeen dalka Kenya una wareegeen dalalka Itoobiya iyo Turkiga. Faarax Macalin ayaa shaaciyay in 50,000 oo qoys oo Soomaali ah ay deganaansho rasmi ah ka heleen gudaha dalka Turkiga, kuwaas oo markii hore ku noolaa dalka Kenya. sidoo kale wuxuu tilmaamay in ganacsato iyo maalqabeenno badan oo Soomaali ah u wareegsadeen dhanka dalka Itoobiya oo ay ka bilaabeen howlahooda ganacsi. siyaasiga Faarax Macalin ayaa arrintan u saweeyay siyaasad xumada wasaaradda arrimaha dibadda Kenya oo aad u dhaliilay. waxaa kale uu intaasi ku daray inuu hoos u dhacay dhaqaalihii dowladda Kenya ka heli jirtay Soomaalida, taas oo uu xusay in uu sanad ka hor ka digay. muddooyinkii dambe ayaa waxaa hoos u dhac ballaaran laga dareemayay ganacsiga Soomaalida ee dalka Nairobi, kaas oo sanadihii lasoo dhaafay dhulka galay. arrintan ayaa xasaasiyadda ugu weyn ee dhalisay lagu aaneynayaa muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya iyo siyaasadoodii oo waayadii dambe sii xumaanaysay ee dhanka socdaalka. Ismaaciil Cumar Geele ayaa baaq u diray dowladda federaalka Soomaaliya ee maamul goboleedka Jubbaland. madaxweynaha dalka Djibouti ayaa markii ugu horeysay ka hadlay khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland. Ismaaciil Cumar Geele ayaa u waramay laanta afka Soomaaliga ee VOA waxa uu sheegay in dowladdiisu ay aad uga xun tahay khilaafka ka dhex aloosan madaxda dowladda dhexe iyo kuwa Jubbaland. sidoo kale wuxuu tilmaamay in khilaafkan uu curyaaminayo horumarka dowladnimada iyo hiigsiga dadka Soomaaliyeed. madaxweyne Geele ayaa intaasi ku daray in Djibouti ay ka qayb qaadanayso xalinta xiisadda siyaasadeed ee haatan u dhexeysa labada dhinac. fadhigii Soomaaliya waan ka qayb galnay, waana ku cadeynay halka sida arrinku dhanka wanaagga ugu socdo, dhanka soo kabista ugu socoto. annaga kama harin, kamana aanu harayno, maxaa yeelay garab buu inoo yahay, ayuu yiri madaxweynuhu. ugu dambeyn waxa uu ugu baaqay madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedka Jubbaland in ay muujiyaan isu tanaasul una turaan danta guud ee dalka.
khilaafka oo ka dhashay doorashadii dib loogu doortay Axmed Madoobe ayaa sii xoogeystay kadib markii ay dowladdu xayiraad ku soo rogtay duulimaadyadii magaalada Kismaayo, taas oo dhibaatadii ugu weyneed ee ka dhalatay ay ahayd madaxweynihii hore Sheekh Shariif markii hakad lagu sameeyey socdaalkiisii uu halkaasi ku tegi lahaa, iyadoona dowladdu u aaneysay in uu ka qaybgalayay caleemo-saar sharci darro ah ama aanan jirin. Farmaajo ayaa ballanqaad culus u sameeyey Soomaalida ku nool dalka Mareykanka. Maxamed Cabdilaahi Farmaajo, madaxweynaha Soomaaliya oo weli ku sugan dalka Mareykanka, ayaa ballanqaad u sameeyey Soomaalida ku dhaqan gudaha dalkaasi. Farmaajo oo ka hadlayay munaasabad xarigga looga jaray dhismo cusub oo safaaradda Soomaaliya ee Washington DC looga iibiyey Mareykanka ayaa sheegay inuu booqan doono gobollada ay Soomaalidu ku badan tahay, gaar ahaan kuwii sida aadka ah looga taageeray barnaamijkiisii qaran. Madaxweynaha ayaa sidoo kale carabaabay deegaanada uu booqanayo, kuwaas oo kala ah Minnesota, Ohio, Texas, Virginia iyo Toronto oo Canada ah. Sidoo kale wuxuu tilmaamay in loo kala hormarinayo sidii ay u kala taageereen waagii uu ololaha doorashada ku jiray ee uu ururiyey lacagtii uu ugu magac daray qaran. Ugu dambeyn, madaxweynaha ayaa sheegay in booqashadaasi uu fulin doono marka uu soo gabagabeeyo safarka uu hadda ku joogo Mareykanka, isla markaana marka uu Muqdisho yimaado mar kale dib ugu laaban doono degdeg dalkaasi Mareykanka. Safarka madaxweyne Farmaajo ee Mareykanka ayaa ah midkii ugu horeeyay ee uu ku tago dalkaasi tan iyo markii loo doortay xilka madaxweynaha Soomaaliya, waxaana muddadaasi dheer ka hortaagnaa inuu dalkaasi shirkani caalamiga uga qayb galo amaba booqasho uu ku tago. Sharcigii Mareykanka uu xilligaasi haystay, walow markii dambe uu caddeeyay in sharciga uu dib u celiyey. Kooxo hubeysan ayaa haweeney ku toogtay suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho. Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dil saakay kooxo hubeysan ay ka geysteen suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho. Wararka ayaa sheegaya in dilka loo geystay haweeney 80 jir ahayd oo ku ganacsan jirtay gudaha suuqaasi. Haweeneyda la dilay ayaa waxaa magaceeda lagu soo koobay Xadiyo, taas oo iibin jirtay shaax, sida ay Daynila TV u xaqiijiyeen dad goobjoogayaal ah. Rag hubeysnaa bistoolado ayaa marxuumadda ku toogtay wadada labaad ee suuqa Bakaaraha, iyagoona goobta isaga baxsaday. Ma cadda ilaa iyo hadda sababta ka dambeysa dilka haweeneydaasi, balse waxaa goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka oo baaritaano ka sameeyay halkaasi. Wararka qaar ayaa sheegaya in haweeneydani oo korinaysay caruur agoon ah ay horey uga shaqayn jirtay nadaafadda dhismaha madaxtooyada. Dilka haweeneydan da'da ah ayaa qayb ka noqonaya falal liddi ku ah nabadgelyada oo muddooyinkii dambe ka dhacayay gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Lacagta ku baxday dhismaha safaaradda Soomaaliya ee Washington ayaa la shaaciyey. Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa faahfaahin ka bixiyay dhaqaalaha ku baxay dhismaha safaaradda cusub ee dowladda Soomaaliya ay ku yeelatay magaalada Washington. Wasiirku waxa uu sheegay lacag dhan 4 milyan iyo 300 oo dollar in ay ku baxday dhismaha safaaradda. Lacagtan ayuu sheegay in sanadyadii ugu dambeeyay dowladda Soomaaliya ay ururin ugu jirtay, isla markaana lacagta ay bixisay wasaaradda maaliyadda. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo ay weheliyeen wasiirada arrimaha dibadda, maaliyadda iyo diblomaasiyiin Soomaaliyeed ee ka howlgala dalka Mareykanka ayaa xalay xarigga ka jaray dhismaha cusub ee safaaradda Soomaaliya ee Washington. Madaxweynaha ayaa sheegay in hirgelinta dhismahan oo noqonaya dhismihii safaaradeed ee ugu horeeyay ee dowladda Soomaaliya ay ku yeelato dalka Mareykanka ay muujinayso mudnaanta dowladdu ay siinayso soo celinta maqaamka dalkeena uu ku lahaa caalamka. Turkiga ayaa ballanqaad u sameeyay wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta Soomaaliya. Wasiirka Boostada, Isgaarsiinta iyo Tiknoolajiyadda Injineer Cabdi Canshuur Xasan ayaa si rasmi ah uga codsaday boostada Turkiga inay gacan ka geystaan sidii loo soo nooleyn lahaa boostada Soomaaliya oo gebi ahaanba ku burburtay dagaaladii sokeeye ee ka dhacayay Soomaaliya. Wasiirka oo magaalada Geneva ee dalka Switzerland kula kulmay gudoomiyaha golaha maamulka ee Midowga Boostada Adduunka ee magacooda loo soo gaabiyo UPU ahna gudoomiyaha boostada Turkiga Mudane Kenan Buzjigi ayaa ugu horeyn uga mahadceliyay dowladda iyo shacabka Turkiga taageerada hiil iyo hooba
leh ay la garab taagan yihiin dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed tan iyo markii 2011 uu dalkaasi tegay ama dalkeena yimid sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha xilligan ee Turkiga balse xilligaasi ahaa ra'iisul wasaaraha dalkaasi Rajab Tayyip Erdogan. Wasiirka ayaa sheegay in waayo aragnimada iyo kalsoonida ay shacabka Soomaaliyeed ku qabaan waxqabadka ay ku dhiirigelisay inay codsigaasi u soo gudbiyaan, isagoona intaasi ku daray in uu rajeynayo in boostada Turkiga wax kala qabato sidii loo soo nooleyn lahaa adeegaasi oo muhiim u ah dhaqaalaha Soomaaliya gaar ahaan waxyaabaha dalka ka dhoofaya. Gudoomiyaha boostada Turkiga ayaa ballan qaaday inay Soomaaliya kala shaqeyn doonaan sidii loo dhisi lahaa boosto casri ah oo ka faa'iideysata waayo aragnimada iyo xiriirka diyaaradaha Turkiga ay la leedahay adduunka si looga miro dhaliyo arrimahan, waxayna labada wafdi magacaabeen guddi farsamo oo ka soo shaqeeya sidii iskaashi buuxa u dhex mari lahaa labada boosto. Waan ku guuleysanay inaan ku soo noqono masraxa UBU oo nagala qaado cunaqabataynta isla markaana aan codeyno markii ugu horeysay burburkii kadib, laakiin in boostada dibadda loo diro waa hawl aad iyo aad u culus oo u baahan qalab, aqoon iyo isku xirka adduunka, kuwaas oo aan looga maarmin walaalaha Turkida in ay naga caawiyaan, ayuu yiri Wasiir Canshuur oo intaasi ku daray inay xoogga saarayaan sidii adeegan loo soo celin lahaa. Isgaarsiinta kadib, boostadu waxay noo tahay mudnaanta labaad, waayo waa fududeeyaha ganacsiga internetka, fududeynta adeegyada maaliyadda iyo in dadweynaha loo soo dhaweeyo adeegyada dowladda, ayuu yiri. Waxaan dooneynaa inaan dhisno boosto casri ah oo adduunka kala qabsata meesha uu haatan marayo, ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay Wasiirka Boostada iyo Isgaarsiinta Dowladda Federaalka Soomaaliya. Hantidhawrka Guud ee Soomaaliya ayaa shir uga qayb galay dalka Ruushka. Hantidhawrka Guud ee Soomaaliya Maxamed Maxamuud Cali oo ka qayb galaya shirka INCOSA 2019 ee ka dhacaya dalka Ruushka ayaa sheegay in Soomaaliya ay sanadka 2019 qaadatay habraaca baarista casriga ah oo ay hantidhawrada adduunka ku dhaqmaan. Wuxuu kaloo hantidhawruhu sheegay in ay la shaqeyn doonaan wasaaradaha maaliyadda qaadashada iyo ku dhaqanka habraaca warbixin maaliyadeed loo yaqaano EBSIS Cash Based, taa oo tilmaamaysa in ay tahay guul u soo hoyatay Soomaaliya oo la doonayo in horey loo dhaqaajiyo. Hantidhawraha Guud ee Soomaaliya ayaa sidoo kale kulamo gaar ah la qaatay dhigiisa wadamada Turkiga, Finland iyo hay-adaha Afroza iyo Arbasol oo ay Soomaaliya xubinnimadeeda dib u soo ceshatay, isagoona kala hadlay sidii loo xoojin lahaa iskaashiga iyo taageerada xirfadda farsamo oo ay wadaagaan. Ugu dambeyntiina, madaxweyne ku-xigeenka Somalilan ayaa kulamo ka wada isutaga Imaaraadka Carabta. Madaxweyne ku-xigeenka Somalilan Mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa ku sugan isutaga Imaaraadka Carabta, waxaana hoteelka uu ka degan yahay Dubai ku soo booqday ganacsato waaweyn oo daneynaya inay maalgashadaan Somalilan. Kulankan madaxweyne ku-xigeenka uu la qaatay ganacsatada ku soo booqatay hoteelka uu ka degan yahay ayaa ujeedkiisu u daaranaa sidii ay uga qayb noqon lahaayeen horumarka ballaadhan ee ka socda Somalilan, gaar ahaan dhinaca maalgelinta iyo horumarinta dhaqaalaha dhan walba la xidhiidha. Waxaanay ganacsatadaasi u soo bandhigeen madaxweyne ku-xigeenka Somalilan inay daneynayaan inay maalgelin ku sameeyaan dhinaca beeraha, dalxiiska, warshadaha iyo inay ka sameeyaan gudaha dalka hoteelo waaweyn oo casri ah, maadaama ay Somalilan noqotay meel maanta caalamku isha ku hayo oo uu daneynayo una tartamayaan ganacsatada waaweyn iyo dowladaha adduunka. Madaxweyne ku-xigeenka Somalilan Cabdiraxmaan Cabdulaahi Ismaaciil Saylici oo ganacsatada uga mahadceliyay sida ay u daneynayaan Somalilan in ay maalgelin ku sameeyaan, ayaa ugu horeyn ku martiqaaday ganacsatadaasi inay dalka yimaadaan oo ay soo indheeyaan horumarka iyo dadaalada maalgelineed ee ka socda Somalilan, soona arkaan xeebaha Somalilan gaar ahaan Marsada Berbera oo iyadu waqtigan hoggaanka u haysa horumarka ka socda Somalilan, lehna garoon diyaaradeed oo hadda uun farta laga qaaday, ahna kan Afrika ugu weyn waqtigan, loona isticmaali karo nooc kasta oo diyaarado ah Afrika inteeda kalena looga faa'iideyn karo dhinaca ganacsiga.
daawadayaal waxaan halkan kusoo gabagabeynayaa guud ahaan warkii aad kala socoteen janalkeena Daynila TV intaan warkan warka xiga ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo amaana Allah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.